wararka laga helayo dalka Ruushka ayaa ku waramaya ciyaaryahanka heerka caalamiga ee u dhashay Ruushka ee Alexander Kokorin lagu magacaabo uu markaan helayo abaalmarintiisii ugu horeysay kadib markii kooxdiisa Zenit St. Petersburg ay ku guuleysatay horyaalka wadanka Ruushka sida uu xaqiijiyay madaxweynaha kooxdaasi Zenit. ciyaaryahanka Kokorin ayaa lagu xukumay 18 bilood oo xabsi ah markii isaga asxaabtiisa ay garaaceen askari Ibliisa sanadkii hore ee 2018 laga soo bilaabo bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa markaasi uu xabsi ku jira. waxa uu ciyaaray kaliya 3 kulan oo horyaalka wadanka Ruushka ah intii ay ku jirto kooxdiisa campaign-ka ama tartanka ay ugu jirto ku guuleysiga koobka. inkastoo waqtigiisa ugu badan ee xilli ciyaareedka ku qaatay xabsiga, haddana weeraryahankani Kokorin lagu magacaabo waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii loo soo xushay listiga ama tiimka kooxda Zenit St. Petersburg ee xilli ciyaareedkan dhamaanaya. keliyana waxa uu ciyaaray 3 kulan oo kooxda uu markaasi u saftay, waxaana uu heli doonaa marka kooxdu ay gudoomayso abaalmarintiisii ugu horeysay. kaamirooyinka ayaa qabtay isaga oo markaa laga soo saarayo xabsiga, gacmahana ay uga xiran yihiin markaasi jeebada xabsiga, halkaana marka loo sii wado halka lagu gudoonsiinayo abaalmarinta. ciyaaryahanka Kokorin ayaa waxaa xabsiga ku weheliyay walaalkiisa ka yar oo lagu magacaabo Kirill, saaxiibkiisa lagu magacaabo Alexander iyo saaxiibkiisa hore ee xulka qaranka Ruushka ay ka wada tirsanaayeen Mamediev. ciyaaryahankaasi ayaa waxaa markaasi maxkamaddu ay ku xukuntay in xabsiga uu baaqi ku sii ahaado 18 bilood, inkastoo hadda laga soo bilaabo Oktoobar sanadkii hore uu xabsiga ku jiro. haddana waxaa markaasi la leeyahay marka uu xabsigiisa dhammaysto dib ayuu ugu laaban karaa ciyaarista kubadda cagta. ciyaartooyda saaxiibada yihiin ee ka wada tirsan yihiin kooxda Zenit ayaa waxay markaasi u sheegeen inay la jiraan oo ay markaa la danqanayaan.